barin in aad maxay haday aad guriga fadhiisatid sax ma sha Allah hadii aad haysto aan gaari quraac marka kulli ama video gaari saar wax yar dharka iibsatay haysanin haddana kulli ma shaqo tagayo oo fadhigi jeclaanaya hadii toole marka maxay haday isbedel yar laga arko maadaama saaray ay nagday ninka hadii la saaray ninka waxa la rabaa inuu maxay haday biil iyo kira iyo wax kasta oo xataa markad waxaad arkaysaa ayakiyo maxay waxba la siinaynin biil la siinaynin amba hadii wixii la siinayo biil yar oo qiyaasan u yahay aan reerkayga waan tagaya wixii ugu ribad ayay tiri ma saaray barakaatu walaashii fiilsan jinacan nagala socotiin waa dumarkaaba channel ugu horreyn hadaan ugu sabtaa subscribe noo saar hada hore nala joogtay la sii joogan bareel hore si uu kugu soo dhaco video kasii soo galino maxay haday kadad video ka like noo saar asxaabtada u share garay wixii fariino comment noogu rib aad iyo aad salaamay asxaabay waxaan noo wada barnaamijkii hore noogu socon jiray oo dumarka ku saabsanaa mid kamid ah haddaan meeshii nooga sii baqaadaan maanta barnaamijkan wado aan ku socdo waxa weeyaan dumarka maanta la hadlaya aad iyo aad talo waxa siinay dumarka aad iyo aad muhiimsan maxay yahay dumaro walaalahay bay tihiin aniga idin kamid baan hay waan dareemi karaa xaaladihiina waxa dareemaysiin waxaan idin sheegayaa gabar kaste oo hooyo ah amba maxay yahay guursatay ilmaha dhasho amba yee dhalin gabar kaste oo maxay reer le ayaan la hadlayaa walaalo marka maxay haday reerkiinu ay ku soo korinayeen oo wax ku soo barayeen reerkiinu kuumay soo korinin oo kuumay soo barin in aad maxay haday aad guriga fadhiisatid sax ma sha Allah hadii aad tahay hooyo oo maxay haday caruur badan oo yar ah haysatid meel matay kartid taas baarun ah laakiin sidaynu arkayno markaynu ka hadalno mujtamaceena hadda jooga iyana Soomaalidu waxay tiraahdaa macnaha wax tagay tiigsimaad male amba aabahay baa maxay haday maxay lahaan jiray waxa lagu jiray maamada way geera kala maqan aabahay maxay lahaan jiray aniga dameer leba dhaanta marka waxaan idin sheegayaa gabdho aabahay baa maxay lahaan jiray ana dameer leba dhaanta baa la yiraahdaa marka walaalay waxaan idin sheegayaa koow maxay haday sax waxa weeyaan seen iska ognahay oo aynu la socono adduunka la joogo waxa weeyaan qof kasta buu dhimanaya hadii la dhimanayo ninkan aad isqabtaan ama maxay haday nolosha ku darsateen adduunkan markasta ma joogi karo ma ogaan kartid adiga iyo isaga mid ka horeynaya hadii aad tahay hooyo oo ilmo haysata oo shaqaysan karin oo shaqaysanin oo nafteeda barin inay shaqaysato ilmo kaliya haday xataa tahay hadii lagaaga tago lagu kala tago lagaaga dhinto ma shaqaysan kartid ilmaha ma caawin kartid intaas habeenay maalin waan arkaynaa oo maadaama aan dumar ahay oo dumarka aad ugu dhex jiro waxaan arkayaa dumar cabanaya ma shaqaysto imika kale tusaale ahaan hadii maxay haday ay ninka kala tagaan ninkii baa la isku dhacayaa marka la isku dhaco waxa la leeyahay ma awoodo ina maxay haday ninkii iska tag buu leeyahay wallahi qasaan hada ku hor maqlay Facebook lagu soo qoray waxa tiri gabadhu ninkii baan isku dhacnay markaas ku dhacnay wixii uu iska bax meesha reerkaygu joogaan waa xawiyaan meel ka fog aniga shilin ma haysto aan gaari quraac marka kulli aan bixiyo gaari saarna reerkaygu waan tagaya wixii uu ribad ayay tiri kuma saarayo lacag kuma siinayo baxna gurigana ka bax maxay meesha ugu tag marka taas oo kala dhici karta talabaad dumarkeenu ma yaqaana wax dhigta hadii maxay haday xataa si kasta oo shaqaysanayso horta mas'uuliyadda reerka guriga ninka la saaray ninka hadii la saaray ninka waxa la rabaa inuu maxay haday biil iyo kira iyo wax kasta oo xataa gabadhan arbixeeda iyo caruurtii wax kasta isaga mas'uulka ah hadiiba maxay haday adigu tahay gabadh shaqaysata oo maxay haday ninka uga baahneen arbax iyo waxaasi naftaada ku filan naftaada wixii aad u qabsan kartid u qabso wixii kalena meel dhigo waayo farxad iyo geeri buu jirtaa reerkiina dhibaato ku soo kordhi kartaa ninka kala tagi kartaa ninka dhiman kara war ma haysid wixii kugu hor iman kara mid kale waxa weeyaan dumarkeena waxa yaqaanaan hadii la guursado in guriga fadhiistaan waxa ku leeyihiin nin baa qabo meel ma tagi karo qaarkood waxaad arkaysaa ayakiyo maxay waxba la siinaynin biil la siinaynin amba hadii wixii la siinayo biil yar oo qiyaasan u yahay aan maxay wax yar cream ka marsatay haysan wax yar dharka iibsatay haysan haddana kulli ma shaqo tagayo oo fadhigi jeclaanaya hadda toole marka maxay haday isbedel yar laga arko maadaama maxay haday ay nagday qof cream yar xataa ugu yaraan marsan karin ay tahay
ninkiina wuxuu odhanaya way isbedeshay naagtani wuxuu raadsanayaa markaa gabadh yar oo qurux badan oo iska shaqaysa oo cream marsata oo nafteeda ku filan markaa dumar waxaan leeyahay shaqaysta caruurtiina dabarta naftiina u shaqaysta tusaale ahaan gabadh baa 2-3 caruur ninkii ku kala tagayaan amba lagaga dhimanaya way soo cararaysaa guriga hooyadeed bay imanaysaa guriga reerkooda timaado way iska fariisanaysaa alxamdulilah da guriga reerkiina timida caruurta cid kaasi rabtaad helaysid ha fariisanin baax shaqo tag caruurtaada soo shaqayso waxaa laga yaabaa beritoole in aad hooyada iyo maxay hadiya caruurtaadaba aad wada dabari kartid u shaqayn kartid guri fiican degi kartid qaarkood waxay ku leeyihiin duruuf bay haysaa ilmahaygii duruuf darteed baan u dhiibayaa ma shaqaysan karo horta waxaan adigu aaminsanahay qof aan shaqaysan karin oo duruuf dartii ilmihiisa u dhiiba waa qof aan maxay haday waalidkii ama qof ilmahan ka sii reeba aan haysanin haduu shaqo tagi lahaa taas baan duruuf waaqana laakiin qof waalidkii iyo maxay haday xataa markuu ugu yar yahay guriga kale qofku hadda ganaada inuu ilmihii yar yar soo kaxeeyo oo u geeyo qof oo ka sii reebo uu shaqo tagi karo taas duruuf ma haysto laakiin waxaan u arkaa gabadh aan rabin inay isdaaliso shaqaysato caruurteedina iska dhiibta aaya dumar caruurtiina hadhiibina waad ogtihiin hadda maxay rafaadka iyo dhibaatooyinka ka jira adduunka khaasatan Soomaalida dhexdeeda caruurihii maxay in la dilayo la kufsanaayo wax kasta oo dhici karto ilmaha dhashay iska dhiibin markeedu horana dumarow maxay iska daaya dhashan faraha badan ma aha ilaahay aakhiro kuma weydiinayo maxad ilmo badan u dhali weyday laakiin waxa la weydiinaa ilmahan maxad u tarbiyadeyn weyday maxad xaqiisa u sii weyday baa la weydiinaya marka waxa lagaaga baahan yahay in aad ilmahan xaqiisa siisid baa laga rabaa laakiin laga ma rabin ilmo badan dhashid qasama sax adiga cad salaam wuxuu ilmo badan ilmo dhala si maxay muslimku u tarmo waa si wanaagsan taas la isku diidana laakiin haddana maadaama inaku mujtamaceena wixii ka dhex jira aanu arkayno waxa wanaagsan ilmaha dhanacidu kuma oranaysa laakiin ilmaha kala korso marka ay hooyadu nasato oo nafteedu nasato oo ilmihii ay xaqiisi u helo هذا ما شاء الله ويقرح بدنا نسأل الله شريرك ويرماها وحكسته يمكن تصالحان إلهي مركو نقول هي يعني القرآن كلا وصلنا ضد إن محد البيد نتيو وينوش شيء تاسد لا يلا الماها لا وصلنا ضد إن المه نوجسد وحوي النفط هذا نسنا يسا المهن حق سوه ليا وحي لا وصلنا ضد مركي قادر المه الناس كتشرت هذا ما هذه أسكت يعني أنا المك هذا الشيء tani kale ilaahay baa ilmaha bixiya waarun adigoo si kasta sameeyay ay ilaahay u riyaanaysaa wuxuu ilaahay qor cid hor istaagi karta fale laakiin wax walba sabab bay leeyihiin adiga hadaa sababta la timaadid oo qoraalka ilaahay ka weynaado oo uursa ku qaadid male wax dhibaato ma jirto alxamdulillah ilaahay baa keenay waa lagu farxaya laakiin muhiimadu waxa weeye inaad marka hore sababta la timaadid dumarka wax iska qaadanay Soomaalida iska dhal isku kori markay 3-4 maxay dhasho oo dhibaato iyo maxay ama ninkii ka dhintaaba kala tagaan amba buuq iyo dhibaato badan ku furmato waxay taagantaa ilmahayga dartiban u sabraya waxa u sabraysa malaha buuq iyo maskax wareer iyo waxaas baa ku furmaysa marka intaas baan ku soo koobay barnaamijkeena oo dheeraado fiidiyoga ma jecli aad baan salaamaya la socda insha Allah barnaamijka soo socda assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh